السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا fariintani waxay ku socotaa dadka maqli doona ama dhageysan doona oo Soomaalida ah meel kasta ay joogaan bay ku socotaa fariintani. Waxaan soo jeedinayaa ama u soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed talo xalgal ah muhiim ah khibrad ku salaysan la og yahay natiijadeeda dad hadda ka hor ku faa'iideen dadna ku khasaareen. taladan aan soo jeedinayo waa talo dadka qaar ku khasaaray qaarna ku faa'iideen. in taladan waxaan rabaa la meel mariyo, in la fahmo taladan la meel mariyo, lagu dhaqmo, la isticmaalo, lana iska ilaaliyo. taladan aan soo wado waa number 1 waa in la fahmo, number 2 waa in la qaato, number 3 in lagu camal falo, number 4 la iska ilaaliyo. waa in la iska ilaaliyo, waa in lagu camal falo, waa in la qaato, waa in la fahmo, waa in la isticmaalo. shantaas taladan shantaas weeye. taladu waxay tahay aan sheego marka hore waa inaad fahantid, waa inaad ku dhaqantid, ku camal fashid, iska ilaalisid, isticmaashina. waa talo faa'iido leh, khasaarana leh. waa talo la og yahay natiijadeeda waa la helay. waa wax practicala oo la og yahay oo la yaqaano. waa wax dhacay hadda ka hor, waa wax dhaca. waa in taladan la qaato, waana lagu faa'iidayaa, waana lagu khasaarayaa taladan. talada waxa weeye aan sheega marka taladu waxay tahay ku dhaqan. markaan ku leeyahay waxaana ka wadaa, haddii qofku dhaho Ethiopian baan ahay ama Kenyaati baan ahay, intaas ha uga harin, ha u ictiraafin in ay jirto wax la dhaho hal Kenya, ha u ictiraafin wax la dhaho inay jirto hal Ethiopia ma jirto, hal Kenyana ma jirto. qofka markuu ku dhaho Kenyaati baan ahay ama Ethiopian baan ahay, markuu ku dhaho waxaad tiraahdaa waxaas waxa la dhaho ma jiraan, qabiilkee tahay weydii, yaa tahay dhe. waxaas Kenya waxa la dhaho ama Ethiopia waxa la dhaho ma jiraane, qabiilkee tahay ku dheh. ha uga harin Ethiopian ahay ama Kenya ah. ayaga dhexdooda waxaa tustaa inay kala duwan yihiin, inay isku mid ahayn. qabyaalad ku dhex beer. arrintani waa halis, ayagayna halis u tahay. sheekadan waana lagu soo tijaabiyey, waana la marsiiyey. waa inaan ogaano khasaaraday leedahay. qabyaaladu Soomaalidu way og tahay, kama qarsoona. marka annaga wixiina baabi'iyey iyo wixiina kala geeyey ayaga aan geyno, ayaga intaan geyno aan ayaga ku dhex beerno, because siday annaga noo baabi'isay ayagana u baabi'inaysaa. qabyaalada bara ayaga dhexdooda, in ay qabyaalada dhexdooda hala baro.
markaan leeyahay ku camal fala qof intuu kuu yimaado kenyaati baan ahay ha ka yeelin waxaad tidhahdaa majal waa tahay ma waxaa tahay ma kikuyaa tahay qolo kastana waa inaa caydooda baratid oo qoloba qolada kale u caydi ninka jalwada markuu kuu yimaado kukuyada u cay kukuyada markuu kuu yimaado jalwada u cay jalwada markuu kuu yimaado mukaamba u cay mukaamba markuu kuu yimaado kikuyo u cay ayaga dhexdooda isku dir waa waxa nalooga faa'iidaystay iyo meelaha ugu fudud oo jileecana laga helay Soomaali haddaan nahay waa qabyaaladda ayaga dhexdooda isnacsi isku dir sida annaga la isugu kaaya diray oo la isu kaaya nacsiyay ayaga dhexdooda isugu dir ayaga ha israacinin ha midaynin ma midaysna Ethiopia ma midaysna Kenya ma midaysna markuu yimaado qofka Kenyaatiga ah weydii markuu ku dhooyaad markuu ku dhoo Kenyaan ba ahay waxa ku tira Kenyaan yaa ka tahay qolama ka tahay Kenya qabiilo u si kala baxaan ma Masai baa tahay ma Kikuya tahay ma Chalwa tahay ma waxa tahay Kalenjin miya tahay qabiilkooda waa in la kala barto Kenyaatiga iyo sida annagaba qabiilkayaga loo kala bartay qabiilkeena loo kala bartay waa in annagu aan iska ilaalino qabyaalad in aanu isticmaalno ama qabyaalad inaanu isku kala saarno ama aan iskala bixino waa inaan diidnaa waa inaan dhahnaa hal baan nahay waa inaan dhahno Soomaali baan nahay Soomaali wax ka sokeeyana ma rabno annaga waxaan gaalada isticmaashay cadaanka isticmaala gaalada waxa Afrika ay ku kala qaybiyaan weeye waxa ay Soomaali ku kala qaybiyaan weeye waxa cadawgooda ay ku kala qaybiyaan weeye midnimada u diidaan inay midoobaan inay kala qaybiyaan oo ayaga laftooda iska hor keenaan bay rabaan way sameeyaan marka aqligooda aan isticmaalno waxa iyagu noo isticmaala ayaga aan u isticmaalno yana caawinin yana u fududaynin Soomaali haddaan nahay ninka qabiilka kale wax ka sheegaya ninka qabiilka ah oo qabiilka kale wax ka sheegaya wuxuu ku yahay Soomaali cadow buu ku yahay waa cadow umada ku dhex jira waa in la cambaareeyo meesha uu marahayo waqtiga uu joogo marka afka uu ku hayo waxaas waa in meeshiisa lagu istaajiyo oo lagu qabto qofka ugu dhow waa in uu cambaareeyo oo indhaha uu naclad ka saaro maxaa yeelay hadalka si sahlan buu qofku u leeyahay laakiin meel fog buu tagayaa dib buu geysanayaa hadal wax si sahlan u tiri dib weyn buu geysan karaa waxa la yiri dhagax meel dhow ku dhacaa warna meel dheer buu tagaa dhawaaqna meel dheer buu ku dhacaa dhagaxna meel dhow hadalku waxa weeyaan wuxuu leeyahay waxa la dhaho consequences natiijo leeyahay hadalka kan la iska dhaho iyo kan kaska loo dhaho mid kaste natiijo leeyahay hadal khasaare ah male mid kaste wuxuu keenayaa cawaaqib buu keenayaa mid kaste hadal kaste oo la dhaho cawaaqib buu keenayaa marka aan iska ilaalino qabyaaladda Soomaali haddaan nahay aan qabyaaladda iska ilaalino waa haynaa natiijadeeda anagu haddaan garan weyno dhibkay leedahay cod kale oo garanaysa male anagu na dhibaateeyay marka anagii uu na dhibaateeyay haddaan garan weyno waxa weeyaan khasaaro mid ugu weyn weeye khasaarada waxa weeyaan inuu markii hore na dhibaateeyay khasaarada labaad oo ka sii darana waxa weeyaan wixii na dhibaateeyay inaan garan weyno marka waa in la iska ilaaliyo qabyaaladda markaan ku leeyahay ku dhaqmin taladan ku soo jeedinahay markaan ku leeyahay ha ku dhaqmin waxa weeyaan adigu ha isticmaalin oo ha iskala saarin oo qabyaalad ha iska dhigin oo saa ha isu kala bixinin because waxa ka talinaysa ba'aaga iyo hoogaaga ka talinaysa hadaas aad tiraadid waxa isleedahay qofkan ama ku xumee ama ku madadaalo ama waxa weeyaan dhibkaaga ka talinaysa markuu ku yimaado Kenyaad kan ku dhaha Kenyaan baa ahay markuu ku dhaho yaa tahay qabiilkee baa ka tahay Kenya lafteeda isma taqaano waa kala dad ayaga laftooda weydii yaa ka tahay ha uga harin intaas waa inaa kala baratid qabiilkooda oo caydoodana aad baratid iyo midba iyo waxa isku haystaan waa inaa intaad baratid aad dabka ku sii shidid oo ayaga aysan kuu midoobin oo aad kala jabisid waa inaad baratid waxa isku haystaan
waa inaad u dhabagashid midda ugu sahlan oo ay Soomaali isaga dhican karto cadowgeeda waa middaas. midda labaad haddii kan Ethiopian waxa la dhaho ma jiraan, wax Ethiopia la dhaho ma jiraan, Ethiopia waxa la dhaho ma jiraan, taas waa xaqiiq weeye in aysan jirin waxa la dhaho Ethiopia. waxay kala yihiin waa cadow isku jira oo isla jooga oo isnacab oo midba midka kale uu nacab yahay oo midba midka kale uu rabo inuu dilo. marka Ethiopian baa ahay markuu ku dhaho ka yeelin, Ethiopian baan ahay markuu ku dhaho ka yeelin waxaad tiraahdaa Ethiopian wax Ethiopian la dhaho ma jiraane yaa tahay dhe qoladee ka tahay dhe yaa tahay qoladaa tahay sheego. Ethiopia lagu sheego waa wadamo badan oo isku dhex jira, waa wadamo aad u fara badan oo isku dhex jira, ismana yaqaanaan, waa dawlado la isu keenay weeye oo fara badan. dawladahaas waxaa ka mid ah Ethiopia la isugu keenay oo la rabo in la isku khasbo. dawladahaas waxaa ka mid ah Tigray waa dawlad gooni ah, Amharo waa dawlad gooni ah, Oromo waa dawlad gooni ah, Soomaaliduna waa dawlad gooni ah. dad kale oo la dhaho Southern people ayaguna waa dad gooni ah. marka waxaad tiraahdaa Ethiopian ka markuu dhaho Ethiopia waxa la ma jirtee dawladee ka timid, waxaa ku tiraahdaa dawladee ka timid. maskaxda u geli adigu waxaad maskaxda u geli kaad kulantaan inay kala duwan yihiin oo mid kasta uu yahay dawlad gooni iyo qabiil gooni inuu kala yahay, ayaga laftooda isku dir iska horkeen. markaas weeye markaan ku leeyahay ku dhaqan markaan ku leeyahay waxa weeyaan ayaga u isticmaal, ha cafinin jaaniskaas hadduu ku soo maro meel kastoo ay isugu timaadaan. qofka Ethiopian kuu sheegto waxaad tiraahdaa markaad xagee ka timid markuu ku dhaho Ethiopia ha ka yeelin xagee ka timid ma Tigray baa tahay ma waxaa tahay maxaa la dhahaa hadda wayba sahlan tahay oo way is haystaan kulligood, laakiin waa in la sii kala qaybiyo. annaga qaybintay nagu hayeen intaasoo sano waa inaanu ku qabanno, waa inaanu ayagu aan maaragtay waa inaan ayaga aan maxaa la dhahaa waa inaan ayaga ku celinno waxa ayaga shirqoolkay noo maleegeen, waa inaan ayaga gadaal ugu celinno. teeda kale dadka Oromada caynahaya oo Soomaalida ah waxa weeyaan Oromadu waxyaalo badan baa isaga mid nahay. waxa weeyaan waddan kasta xuluf u baahan yahay iyo dad ayaga deegaan ahaan Oromada noogu soo xigta. marka Oromada waa inaan u tartanno oo aan kula tartanno Amxaarada iyo Tigrayga. way isnacab yihiin Oromada iyo Tigrayga, way isnacab yihiin Oromada iyo Amxaarada, way isnacab yihiin Amxaarada iyo Tigrayga iyo Oromada way isnacab yihiin, Tigrayga iyo Amxaaradu way isnacab yihiin, kulligood waa la is wada nacab yihiin, cid is nabcayn ma leh. dagaal baa ka wada dhexeeya iyo xaasidnimo iyo taariikh hore oo soo jirtay baa ka dhaxaysa oo dhib badan. marka aan ka faa'iideysano taladan Soomaalida u soo jeedinayo waxa weeyaan ha caayinina dadka Oromada ah, yaan la caayin, yaan la arkin maxaa la dhahaa xulufo aan ka samaysano Tigrayga iyo Amxaarada ayaga naga xiga. marka ayaga soo dhaafaan weeye waxay Soomaali u imaanayaan, Soomaali meel kasta ay joogto. marka Oromada la soo dhaafo oo Amxaarada ama Tigraygu markay soo dhaafaan bay Soomaalida u imaanayaan. marka waa inaan isaga moosno oo aysan noo soo dhaafin Tigrayga iyo maxaa la dhahaa iyo Amxaaradu, waa inaysan Oromada soo dhaafin. marka caqli baa la isdhaafaa, caqli baa adduunka lagu isticmaalaa, xoog wax la dhaho ma jiro. xoog dawladaha adduunka ugu weyn baa maquunin waayey, adduunka ku maquunin waayey. marka Soomaalidu ha iska ilaaliso qabiilka iyo saddexdeeda ku dhaqmin, wadamada dariskaana u adeegsano. talada aan u soo jeedinayo waa Soomaalida waa taas, ha idinka dhaadhacdo kuna camal fala Soomaaliga kale ka dhaadhici waxaan inuu sameeyo. anigu adiga aan kaa dhaadhiciyo waxaan in aad samaysid, adiga marka kaa dhaadhacdo Soomaalida kale ka dhaadhici u sheeg, waxaad tiraahdaa waxaan iyo waxaan